tukashada salaada ciid al-adha ayaa maanta looga dareeray degmada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaana dadweynaha u tiro badan ay isugu soo baxeen garoonka ciidda ee Bursade manaanka dadweynaha waxa salaada ciidda kala soo qayb galay culimaawidiin qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qaranka madaxda degmada iyo gobolka waxaana salaada ciidda halka ku dujiyay istuwa diintii oo qaaftay gobolka Saaxil markii ay salaada ciidda soo dhamaatay ayaa waxa halka khudbada ka soo jeediyay culimada iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb galay salaada ciidda ugu horeyna waxa halka ka hadlay istuwa diintii oo qaaftay Maxamed Axmed Faraare isagoo uga digay dalxiisayaasha khatarta ay leedahay baddu inta u direynay dhalinyarada ama daayirta reer Soomaaliland ee ka imanaysa gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland darafyada iyo kuwa dhexeba kuwaas oo xilligan yimaada badda xilliyada ciidaha waxaanu bayaaminaynaa oo cadeynaynaa oo madaxduna iga dambeyn doontaa xilligan baddu way kacsan tahay dadka aan xeeladaheeda iyo xaaladaha badda aqoon waxaanu leenahay walaalayaal way kacsan tahay baddu dadka waalidiinta waxaan leenahay caruurta insha Allah taala hal la ilaaliyo wayaan badda lagu soo deeyay cid aan ehelkii iyo caruurtii iyo dadkii mas'uuliyiinta la soconin maayirka degmada Berbera Abdishakuur Ciidin iyo barasaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa halka uga hambaliyay shacabka ka soo qayb galay salaada munaasabada ciidda waxaan leeyahay waan dadka reer Berbera ku celcelinayaa waxaan jecelahay laba qodob uga faa'iideysto qodob waa ka martida dadka inoo imanaya ee reemanaya gobolada Soomaaliland oo ka imanaya ee u soo farxad tagaya ee imanaya badda iyo dalxiiska u imanaya dadka reer Berbera waxa la soo dhaweeyay marka hore oo ka faa'iideysta dhaqaalaha uga faa'iideysta dadka imanayna waxa leenahay farxad baa kaga timaadeen guriyihiinni reyn iyo raaxad u timaadeen murugaha la noqonina qofkaan dabaasha aqoonin waynaan lagu sii deynin ilaa iyaga og dadkan imanaya waynaan badda ku sii deynin intaas waa inta wuxuun baan taakiidinayaa iyadoo maanta maalin farxadeed ay tahay wuxuun baan taakiidinayaa dadka inoo imanaya ee dabaasha badda imanaya ee dalxiiska oo inta badan dad dhalinyaro u badan inay aad u taxadiraan inay aad laba jeerba way taxadirayaan mar waxay ka taxadirayaan jidadka ay soo marayaan waxa laga yaabaa in gawaarida ay soo kaxaysanayaan aan xitaa jeekinkoogu sax ahayn oo ay jidadka dhaadheer soo maraan oo ay dhexda shilal ku galaan waxaan leenahay hal laga taxadiro kaantarooladana waxaan leenahay aska booliska jooga insha Allah ha jeegareeyaan baabuurta soo maraysa dadka xawaara ay ku socdaan iyo inta dadaysidaan waxa laga yaabaa gaari yar oo loogu tala galay 8 qof inuu qaado in 20 qof la soo saaro culayskaasina waxa dhow sababo iyo jidka ay marayaan inuu sababo inay dhimasho keenaan marka waxaad u socotaan waa dalxiis waxaad u socotaan waa farxadda aad u socotaan insha Allah idinkuna Ilaahay baa maxaan gudayna ilaalinaya taxadirkeena yeelano Gamti Ismaan Ali Real TV